nebi ayuub naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa uu alle siiyey 14 carruur ah, xaas fiican iyo xoolo badan. waxa uu lahaa dad badan oo u adeega kana shaqeeya hantidiisa. waxa kale oo uu lahaa beero waaweyn oo ay ka baxaan dhammaan khudaarta kala duwan. waxaana u dheeraa intaas nebinimo iyo cibaado badan. waa nolol raaxo leh oo uu qof kasta hamiyo in uu ku noolaado. muddo 70 sano ah ayuu nebi ayuub ku noolaa nimco iyo barwaaqo. nebi ayuub waxa xaaladiisa hal mar ayay isbeddeshay. waxa ku dhacay xanuun oo uu la kici waayey. kadibna xoolihii iyo shaqaalihii ayaa ka baxay. sidoo kale waxaa ka geeriyooday dhammaan carruurtiisii uu dhalay oo mid u dhintay. waxaa ehelkiisii ka soo hadhay xaaskiisii oo ahayd xaas fiican. waxayna noqotay gabar faqiirad ah. waxayna dantii ku kaliftay inay shaqo tagto oo ay u khidmayso guryaha jaarka ah si ay u hesho nolol maalmeedkeeda. nebi ayuub wuu sabray. wuxuu ahaa qof aan ka caajisin digriga alle subxaanahu wa tacaala. nebi ayuub jirkiisa ayaa qayb u goy jiray halka uu xanuunku ka gaadhay. dadkii oo dhan way ka tageen marka laga reebo xaaskiisii oo iyadu ku mashquushay daryeelkiisa iyo cunto siintiisa. maalin maalmaha ka mid ah ayaa xaaskiisii ku dhahday, nebi ayuub, maxaad alle u baryi weyday ninkaygiyow ood u weydiisan weyday in uu dhibaatada kaa kor qaado? nebi ayuub waxa uu ugu jawaabay, ma xasuusataa inta sano ee aan caafimaadka qabay, xoolana la haystay, barwaaqo iyo nimcana ku noolaa? xaaskiisa waxay dhahday, haa, 70 sano ayaad caafimaad qabtay oo ku noolayd nolol tan ugu fiican. wuxuu dhahay nebi ayuub, alle waxa uu ii barwaaqeeyey 70 sano miyaanan dhibaatada u samrayn 70 sano oo kale? nebi ayuub waxa uu samray muddo dhan 18 sano oo uu dhibta marka ka dambaysa ay ku sii siyaadaysay ama ku sii kordhaysay. ugu dambayntii xaaskiisa waxaa loo diiday oo laga heliyey shaqadii. dadkiina albaabada ayay ka soo xidheen. kadibna markii ay aragtay in aanay wax cunto ah haynin ayay waxay iska jartay timaheedii oo iib geysay. markaas ayay ku soo gaday ama ku soo iibisay cunto si ay ninkeedii u siiso. cuntadii ayay u keentay nebi ayuub. markaas ayuu weydiiyey xaaskiisa meesha ay ka keentay cuntada, sababta oo ah wuu ogaa in ay shaqadii laga eriyey ama loo diiday xaaskiisa. marka xaaskiisu may rabin in ay u sheegto nebi ayuub arrintan, laakiin nebi ayuub waa uu ku adkaystay waana ku celceliyey. kadibna way u sheegtay in ay gaadhay timaheedii. nebi ayuub markii uu arkay in ay dhibaatadu meel aad u xun gaadhay ayuu samada eegay oo alle u dhawaaqay oo gacmaha kor taagtay. wuxuuna yidhi, allow, dhibta ayaa i taabatay, adigana waxaa tahay rabbiga naxariista badan. markii uu dhibaatadiisa u sheegtay allah subxaanahu wa tacaala ayaa ilaahay farajkii u yimid. allena wuu caafiyey. farxad ayuu ugu beddelay xanuunkii. waxaa alla qadaray in ay xaaskiisii iyo isaguba ku noqdaan dhallinyaronimo oo ay ku noqdaan
labadooduba sidoo kale alle wuxuu u soo celiyey carruurtiisii iyo beerihii iyo shaqaalihii dhammaantoodba. haddaba miyay ku soo gaartay dhibaatadaas oo kale oo gaartay nebi ayuub 18 sano? miyaad weyday dhammaan carruurtaadii? miyaad weyday dhammaan hantidaadii? miyaad weyday dhammaan caafimaadkaagii? miyaad weyday oo ay kaa tageen dhammaan dadkaagii iyo ehelkaagii iyo qaraabadaadii?